وحساك شرفنا إن رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية مدن حسن علي خير ونقل سوق قيبقلو aan dhagaxdhigi wadada la dhisi doono wadada Soddonka ee ka bilaaban doonto aan isgooska shaqaalaha ama ka bilaaban doonto aan warshada caanaha gaar ahaan dugsi sare Taleex oo ilaa ay ku gaari doonto aan isgooska Fagax insha Allah muddo bilooyin ay ku dhamaan doontaa waxayna ka mid tahay waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed maanta ay ku faani karto oo dadka Soomaaliyeed ganacsatada dawladda hoose ee gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe oo ayadana iskaashanayaan intooda oo Soomaali lacag isku dartay ay wax lagu dhisay maanta dhowr wada lagu soo dhisay wadnaha kamid ah marka maantana wadadii Soddonka wadooyinka ugu muhiimsan maanta in la dhagax dhigo muddo bilooyin ay ku dhamaatana waa horumar weyn marka waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa dhamaantood inta ka qayb qaadan karta fadlan nagala qayb qaata waxaan sidoo kale mahad gaar u jeedinayaa oo aan ka rajeynayaa ku bogaadinaya inay si fiican ula shaqeeyaan gudoomiyaasha degmooyinka ay sii marto sida degmada Hodan oo hadda nala joogo gudoomiyihii aan Cantoobo iyo sidoo kale degmada ayadana warta nabadda oo Seynab nala joogto iyo degmada Yaaqshid sidoo kale iyo dhamaanta degmo ay sii marto inay wada shaqeyn buuxda ay la sameeyo ku bogaadinayna marka insha Allah anaga gobol Banaadir ahaan ganacsada iyo shirkadda dhisaysana wada shaqeyn wanaagsan ayaan u ballan qaadaynaa wixii waajib nagu ah ee lagu heshiiyeen anaga diyaar ayaan u lanahay inaan bil walba aan bixino wixii ay kaalin kale nooga baahdana diyaar u lanahay